Maamulada Galmudug iyo sidoo kale Hirshabelle ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray xaaladda murugsan ee ka jirta dalka. War-saxaafadeed wadajir ah oo ay soo saareen maamuladan ayaana waxa u dhignaa sidan: madaxda dowlad goboleedyada Galmudug iyo sidoo kale Hirshabelle ee xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya markii ay tixgeliyeen marxaladda adag ee uu dalku marayo, markii ay wada tashiyo qoto dheer la sameeyeen bulshada qaybaheeda kala duwan, markii ay garwaaqsadeen khataraha dhinacyada badan ee uu dalku wajahayo, markay arkeen ismarwaaga siyaasadeed ee ka dhashay arrimaha doorashooyinka dalka iyo baahida loo qabo in xal degdeg ah loo helo, markay ay arkeen xaaladaha amni darre ee ku soo kordhay caasimadda Muqdisho maalmihii la soo dhaafay iyo sida ay u fidayaan, markay ay garwaaqsadeen in aanay macquul ahayn in la sii fiirsado xaaladaha isa soo taraya ee aan farxad gelinayn shacabka Soomaaliyeed, markii ay garwaaqsadeen baahida loo qabo qaadashada go'aano badbaadin kara mustaqbalka dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Waxa ay soo saareen warmurtiyeedkan ka kooban 11 qodob ayaa lagu yiri: waxaan ka xunnahay dhacdooyinka ka dhacay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho maalmihii la soo dhaafay. Waxaan ka tacsiideynaynaa dadkii ay waxyeello ka soo gaartay dhacdooyinkaas waxaan u aragnaa in ay nasiib darro ku yihiin hannaanka dowlad dhiska Soomaaliya, si gaar ah shacabka caasimadda Muqdisho oo aan mudnayn in la xasuusiyo waqtigii adkaa ee ay soo mareen. Waxaan isla qaadanay in dalku si degdeg ah ugu dhacdo doorasho meeshana looga saaro nooc kasta oo muddo kordhin ah. Waa in doorashada lagu galaa heshiiskii 17 Sebtembar maadaama uu yahay kan kaliya ee lagu heshiiyey. Waa in la joojiyaa meeshana laga saaraa wax kasta oo caqabad ku noqon kara ama horey ugu noqday hirgelinta 17 Sebtembar heshiiskii la gaaray. Waxaan ugu baaqaynaa madaxda dowlad goboleedyada kale ee dalka in ay qaataan kaalintooda ku aadan sidii loo fulin lahaa heshiiska 17 Sebtembar. Madaxda dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa in ay si dhaqso leh u qaadaan dhammaan talooyinka lagama maarmaanka u ah fulitaanka heshiiska 17 Sebtembar si dalku u aado doorasho lagu heshiiyey. Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada ay qusayso arrimaha ka taagan Soomaaliya in ay ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara kala fogaansho iyo xasilooni darro, taasi beddelkeedana la muujiyo qalbi wanaag iyo sidoo kale mas'uuliyad. Waxaan u soo jeedinaynaa qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida in ay ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara amni darro, kuna ekaadaan waajibkooda qaranka ee dastuurka u cayimay, isla markaana aysan ku milmin arrimaha siyaasadda. Guud ahaan shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa in ay meel uga soo wada jeestaan cid kasta oo khatar ku ah amniga iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Qodobka ugu dambeeya ee 11aad ee ay soo saareen maamulada Galmudug iyo Hirshabelle ayaa sidan u qornaa: beesha caalamka waxaan ugu mahadcelinaynaa taageerada joogtada ah ee la garab taagan yihiin Soomaaliya, waxaana ku dhiirigelinaynaa in ay sii wadaan dadaalkooda ku aadan arrimaha Soomaaliya. Tan ayaa waxa ay noqonaysaa mid ka mid ah dhabarjabka soo gaaray dowladda waqtigeedu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hogaamiyo, taasi oo ay aaminsan yihiin dad badan oo falanqeeya siyaasadda Soomaaliya. Maamulada Hirshabelle iyo sidoo kale Galmudug madaxdooda ugu sarreysa Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo Cali Guudlaawe Xuseen ayaa la aaminsanaa in ay ahaayeen saaxiibada ugu dhow madaxweynaha waqtiga uu ka dhacay ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Isxaaq Rashiid Maxamuud, 5TV, Muqdisho.